Aniga waxaan jiraa 16 sano, magacaygu waa Sumayo. Qisadan waxay igu dhacday dhowr iyo 10 sano ka hor, waxayna ku bilaabanaysaa sidan. Haweenaha ka mid ah anigoo cunteynaya aniga faamiliga, walaalkayga waxaa la dhahaa Suheyb. Marka walaalkay wuxuu igu dhahay soo bax aan aadno guriga ayeeyo. Guriga ayeeyo ani ma jecli waayo meel kaymo ayuu leeyahay. Problem ma haysto guriga, laakiin ayeeyadeyda kor waxay ka karaysay qofkaasoo ah nin. Ninkan waxaan ku qiyaasayaa da'diisa 40 ilaa 50 sano. Ninkan ayeeyadeyda u imaaday qaylo ayuu maqlay, wuxuu ku dhahay maamaye xunta ilmaha guriga ka bixi, haddii kale aniga 2 bilood soo socoto ma dhiibaayo kiro. Aniga bilaash maan kirada u bixinayaa. Qaylo ma rabo inaan maqlo. Ayeeyadeyna waxay ku dhahday niyow caadi iska dhig, ilmaha ma u qaylinayo maxaa ku daran. Wuxuu dhahay qaylo haddaan maqlo ogaa 2 bilood soo socota aniga ma dhiibaayo kiro. Anna waan u imaaday ayeeyadey anoo ordayo waxaan ku dhahay maxaa ninkan ugu kiraysay guriga, maahan inaad ugu kiraysid. Ninkan wuxuu soo wadiyay webigii habeen. Maalinta ku xigtay ayeeyadeyda ayaa na soo dhaweysay waayo anaga waa imaanay. Ayeeyadeyna kaligeed mayna salaameyn, ninkina kor ayuu naga soo fiirsanayay. Marka aniga iyo walaalkayga Suheyb, ayeeyadeyna waxay noo keentay 2 keeg qaantiinba 2 doolsho oo macaan badan. Waad garanaysiin aan maleynayaa ayeeyo walbo ilmaheeda markay soo dhaweynayso waxay u karisaa keeg. Marka walaalkay wuxuu la sheekeysanayay ayeeyadey, wuxuu dhahay goormee noo imaan doontaa. Walaalkayga ayaa dhahay soo bax baa Sumayaan soo wada dheelna dhuumashaaleey. Haye waayaan ku dhahay, waxaan ku dhahay mis diyaaris 1 2 3 ma dhuumatay. Isna wuxuu dhahay may sug. Marka aniga waxaan tiri 1 ilaa 50 kadib waan dhameeyey waan raadiyey waxaan dhahay asxaabay iga raali noqda, waxaan inaga hilmaamay walaalkayga waa Suheyb. Marka ani waan waayey, waxaan is dhahay amuu ninkaas qaatay walaalkayga mise gurigiis inuu galo ayaan u maleynayaa. Kadibna waxaan iska baaray geesinimo, kadibna waxaan tagay saqafka kore oo guriga. Albaabka wuu furnaa, xataa albaabka maanan qarqaraacin, tartiib ayaan u soo galay. Marka albaabkii saas u furabo, ninkan gurigiis aad ayuu soo urayaa, waayo khamro iyo waxyaalo ayuu cabay ayaa guriga ma wala hagaajibo. Ninkan gurigiisa wada wasakh ma dhahdaa urka. Markaas aan u socdo waxaan soo gaaray albaab, waan istaagay. Kadib waxaan arkay dhankaas iyo jikada ninkii waayeelka ayaa jikada fadhiyay. Marna wuxuu fiirinayay dariishada, marna dhankeyga, marna dariishada, marna dhankeyga. Kadib ilaahay amarkiis muusan i arkin. Waxaan arkay jikada baalihiis alaabta lagu garo, ma aqaan af Soomaali asxaabe wax lagu sheego oo af Soomaali ku aqaani waxa ku jiro wax bilaadan camal weyn. Markaasaa walaalkay dhahay Sumayo. Ninka wuxuu dhahay waryaa maxaa noogu qaylinaysaa sumadaada cune ma iga aamustid. Markii dambe walaalkay ayaa sikadiis wuxuu dhahay walaashii waxay gashay gurigaaga ma aragtay aad ayaan u naxanin waan soo orday. Kadibna walaalkayga ayaan gacanta soo qabtay, orod ayaan guriga ku soo geliyey. Ayeeyo ayaan arrinta u sheegay, albaabka ayaan xiranay. Ninkani mindi ayuu la taagnaa maasha. Ninkan ilaa wuxuu dilay xaaskiisa oo wuxuu ku riday maashaan hadda idiin sheegayay. Ilaahay amarkiis alxamdulillaah haddaanan albaabka xiri lahayn maanta way noo dhawaan lahayd. Banaanka ayuu nagu sugayay, gurigana cidna mar dambe maanan ka karayn. Ilaa dhamaadka haddaa nala soo gaartay, please like saar.